السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي soo dhawaada meel baadin kor joogtaan soo dhawaada channelkeena cusub ee Gmail qodobada wararka maanta aan idin haynana waxa uu waaweyn isku haraad dhaliya khasaare aad iyo aad weyn iskaga hor yimaadeen ciidamada dalka Shiinaha iyo ciidamada dalka India waxay isku yimaadeen ayaan idin haynaa sirdoonka Soomaaliya intii in la yahay awood ku lahaa siideyntii gabadhii lagu afduubtay muddada dheer lagu haystay gudaha Soomaaliya ee magac shalay ka degtay wadankeeda hooye ee Sylvia Romano. wararka kale tan maanta idin heynana waxa ku jira wasiir ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo sheegay in cudurka COVID-19 uu saameeyay oo ku jira gurigiisa oo dadkan ugu dhawaaqay wixii coronavirus ku dhacay in xaafadooda ay ka soo bixin cudurka coronavirus oo marka la ka dilaacay dalka Shiinaha ayagana warbixinayeen ka haynaa ee ku soo dhawaada channelkeena marka hore. Shiinaha ayaa la sheegay inuu marka la ka dilaacay cudurkan Shiinaha ayaa la soo sheegay inuu cudurka coronavirus marka la ka dilaacay ilaa haatan kiis wuxuu marayaa 17 kiis ilaa markii Shiinuhu ku dhawaaqay inay soo aftireen cudurka coronavirus magaalada Wuhan ayaa ahayd halkii uu ka bilowday cudurka coronavirus waxaana kiiska yihiin kuwa gudaha magaalada ka dhashay aan meel kale ka imaan 17 kiis laga helay wadanka hadda dhawaanahan ay 5 kamid waxa laga sii helay khaasatan meeshii awal ka dhashay cudurka coronavirus ee Wuhan. Tirada ayaa noqotay tii ugu badneed ee laga helo Wuhan tan iyo intii dawladda Shiinaha ku dhawaaqday in cudurka coronavirus la soo afjaray magaalada iyo gabi ahaanba dalkaas. walaac ku aadan in cudurkan kasii kordha dalka Shiinaha ayaa soo xoogaysanaya iyadoo adduunka weli ka la tacaalay cudurka xanuunka cudurkaas iyo sidoo u saameeyay adduunka. warkeena kale tan maanta wuxuu leeyahay iska horimaad khasaare geystay oo dhexmaray ciidanka Hindiya iyo ciidamada ka Shiinaha waxay isku yimaadeen 4 askari tobaneeye ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ayaa xabada isku weedaarsaday xuduudda ay wadaagaan sida ay warbaahinta Hindiya sheegayso. 4 askari ayaa Hindiya ku dhaawacmay halka Shiinuhu ku dhaawacmay 7 askari sida ay sheegtay saraakiil ka tirsan ciidamada ku sugan gobolka xuduudda ee Sikkim. taliyayaasha deegaanka ayaa khilaafkan oo dhacay maalintii Axad ahayd xalay labada dal ayaa khilaafka xuduudaha ay wadaagaan weli taagan tahay. Shiinaha iyo Hindiya ayaa dagaal la xiriira xuduudaha wuxuu dhexmaray 1962. wasiir ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo sheegay in cudurka coronavirus soo saameeyay isaga uu ku dhacay. wasiirka ganacsiga ee maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa sheegay in cudurka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee safareenka qoraal uu bartiisa Facebook soo qoray ayuu sheegay inuu ku dhacay cudurka COVID-19 asagoo tilmaamay in xaaladiisa ay tahay mid wanaagsan oo karantiin ku jiro. wuxuu ku dhacay COVID-19 wuxuu yiri waxay u dhacay COVID-19 waana laadanay hadda qandho iyo wareer badan ayaa igu darnaa maalmihii la soo dhaafay waxaan isku xanibay guriga cidna isma aragno meelna uma baxo si aan dadka kale u qaadsiin waxaan ku sii jiri doonaa guriga ilaa 14 bari soo socda. sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in dadka cudurkan ku dhaco inay xaafadahooda joogaan waayo wuxuu yiri dad waaweyn iyo dad aan u adkeysan karin ayaa cudurka jooga adigu haddaad caafimaad qabtid in dad cudur kale ee qaba oo aan awoodooda fiicnayn. inta in leeg ayuu ku lahaa awoodda sirdoonka Soomaaliya Talyaaniga ayaa warbixin ka soo saaray. Sylvia Romano waa haweeney arrimaha samafalka shaqeysa ayaa waxa toddobaadka la soo dhaafay lagu dhawaaqay in laga sii daayay afduub lagu haystay magaalada meel ka mid ah Soomaaliya oo Al-Shabaab ka maamusho. ilaa haatan lama bixin tafaasiil dheeraad ah ku saabsan qaabka loo soo daayay. dawladda Talyaaniga waxay xaqiijisay inay soo deynteeda gacan ka haysteen mukhaabaraadka Soomaaliya iyo Turkiga. Romano hal habeen ku qaadatay Muqdisho kadib markii la sii daayay shalay ay dib ugu noqotay wadankeedii hooyo bishii November ee sanadka 2018 ayaa laga qafaashay koonfurta bari ee Kenya howlgal bini'aadanimo xaggaas u tagtay. VOA ayaa baahisay in haweeneyda lagu haystay Kenya ku dhow degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose taasoo
qiyaasaysa in 30 kiilomitir dhinaca galbeed oo kaga aadan magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa farxad ka muujiyay sii deynta haweeneyda walow uu adeegsaday ereyga ah waa la xoreeyay. Warbaahinta Talyaaniga ayaa carabka ku adkaysay in Romano lagu badbaadiyay dadaal wadajir ay sameeyeen ciidamada Turkiga iyo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Talyaaniga oo meesha madaxda ka ahaaba mishiinka fulinayay. intaas noogu eegay wararkeena maanta. haddaad ka hesheen waxaan leeyahay subscribe saara, like-tana waa muhiim, wixii comment-iyana hoos noogu soo qora aad aragteen. aad iyo aad ayagu mahadsantihiin daawashadiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.